waxaa guud ahaanba saaka si rasmiya oo nabadgelya ay uga bilaamatay diiwaangelinta codbixiyaashu guud ahaanba gobolka Maroodijeex taasoo ay shacabku u dareereen diiwaangelintaasi. madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye ayaa diiwaangelintii muwaadinimo ee uu xaqa u lahaa iska diiwaangeliyey xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda oo ka mid ah goobaha ay shacabku iska diiwaangelinayeen si ay uga qayb qaataan doorashooyinka la filaya inay dalka ka qabsoomaan horaanta 2017. markii uu madaxweynaha Soomaaliland uu soo gaadhay xaruntaasi waxaa albaabka laga galayay xarunta hay'adda shaqaalaha ee diiwaangelintu ay ka socotay ku soo dhaweeyay oo ku sii sugayay madaxda komishanka doorashooyinka qaranka iyo saddexda xisbi qaran. mudane Axmed Maxamed Silaanye madaxweynaha Soomaaliland ayaa mid u salaamay mas'uuliyiintaasi soo dhaweeyay. intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa fadhiistay kursiga loogu talagalay qof kasta oo muwaadina oo iska diiwaangelinayay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda. waxaanu madaxweynaha Soomaaliland uu gudagalay hanaankii isdiiwaangelineed iyo dhammaystirka shuruucda looga baahan yahay muwaadiniinta Soomaaliland ee isdiiwaangelinayay, halkaasoo si habsami ay uga socotay hawsha isdiiwaangelintu isla markaana ay ku hawlanaayeen shaqaalaha kala duwan ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland uu u soo igmaday diiwaangelintaasi. madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa wada buuxiyay dhammaanba shuruudihii looga baahnaa muwaadinka ka qayb qaadanaya doorashooyinka soo socda ee 2017. waxaana komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ay aad u adkeeyeen ku noqnoqoshada ay muwaadiniinta qaar ka mid doonayaan inay 2 jeer iyo wax ka badan isdiiwaangeliyaan. markii uu soo dhammaystay madaxweynaha Soomaaliland isdiiwaangelintaasi waxaa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi iyo warfaafinta Mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani, kuwaasoo ka hadlay isdiiwaangelinta gobolka Maroodijeex sida rasmiga uga bilaamatay iyo sida xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne Axmed Silaanye ay u danaynayso inay dalka ka qabsoonto doorashooyin xor iyo xalaal ah. madaxweynuhu saaka halka wuxuu yimi inuu ka qayb qaato oo saaka ballaysimo diiwaangelinta codbixiyaasha ee ka bilaabantay gobolka Maroodijeex. xukuumadda madaxweyne Axmed Silaanye waxaa ka go'an dalkan in ay ka hirgeliso doorashooyin xor iyo xalaal ah waqtiga loo mudeeyay 2017. geedi socodka dimuqraadiyaddu waa dhabada kaliya ee xukunkan lagu yimaado talada dalka lagu haaneedo. dhaba kale oo talada lagula kala wareega ama lagu haaneedaana ma jirto. xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba waxaa ka go'an inaanu tartanka ka qayb galno. dib u dhigii lagu sameeyey xilliga abaarahana go'aan sax buu ahaa, go'aan taariikhiya buu ahaa. ummad gaajoonaysa, silcaysa, baaba'aysa, dhimanaysa in la yiraahdo diiwaangelin u dareero moralka iyo dadnimada wax ka soo horjeeday ahayd. ilaahay subxaanahu wa tacaala baynu barinay, ma ahayn mid tab iyo xeelad kale laga lahaa. taariikhda ayaa xusi doontaa waxyaalihii ka soo baxay dhinaca farsamada. waxaa runtii aanu ugu mahadnaqaynaa oo kuna hambalyeynayna guddiga doorashooyinku siday u hagaajiyeen kharshayaadka iyo duruufaha ka soo kordhayna. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka go'an inuu dhammaan kabo culaysyada ka yimaada sidii dalkan doorasho uga qabsoomi lahayd. kharshaad fara badan baa ka soo kordhay diiwaangelintii rabadaantii iyo oo la baaqday iyo bishan la baajiyey labadaaba. dhammaanna xukuumaddu waxay ku tala gashay inay kharshaadkaas buuxiso. dadka waxaanu leenahay ka qayb qaata diiwaangelinta, isdiiwaangeliya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye wuxuu halkan xarunta shaqaalaha u yimi sidii isaga diiwaangelin lahaa. waa maalin taariikhi ah, waa maalin aynu Ilaahay ugu mahadnaqayno. bil ka hor abaara ayaa dalkan ka jiray, abaara adag baa ka jiray. madaxweynaha iyo dawladdu waxay go'aansatay in la joojiyo bil gudaheed abaaraha awgeed si dadweynaha ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland abaaraha soo hayeen si loo taakuleeyo. ilaahay wuu naga aqbalay, duco badan baynu samaynay. bishii maanta raxmad baa dalka oo dhan ka maxaan ku idhaahdaa daaday. go'aankaas waxa ahaa mid taariikhi oo madaxweynuhu gaadhay run ahaantii. maantana roobkiiba markaa maanta waxaanu samaynaynaa waxa weeye gobolka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu population ka badan leh ee ugu ummadda maxaan ku idhaahdaa ayaa maanta diiwaangelintiisii bilaabantay. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu nabadgeliyo
iyo khayr ay maxaan ku rahdaa diiwaangelintaasi inoogu socoto intaas iyo inta maxaan ku rahdaa labada gobol ee kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka hadhsayba waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ku kala hadlayay magacyada komishanka doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada qaranka kuwaasoo soo dhoweeyey arrintaasi waxaan soo marray maanta goobo badan kumishku wuu isqaybiyey waxa oo dhan buu isu qaybiyey meel walba si fiican bay uga bilaabantay ilaaha weyn baynu u mahadnaqaynaa maanta weligeena u mahadnaqi doonnaa insha allahu inoo fududeeyey inay si habsami ah ay uga bilaabanto caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa gobolkii afraad ee Maroodijeex oo ay maanta diiwaangelintu si rasmi ah uga bilaabantay magaalada degmada Hargeysa iyo degmada Salaxley saaka waxay ka bilaabantay gobolka Maroodijeex iyo degmooyinkiisa oo dhan bay ka bilaabantay waxay noogu bilaabantay nabadgelyo waxay noogu bilaabantay jawi maxaan ku dhahdayay barwaaqo oo maxaan ku dhahdayay ilaahay abaartii nooga soo farajaday waan ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadkii ka soo shaqeeyey ama dadkii qaybta ka qaatay hawlaha diiwaangelinta hadday tahay xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo dalalka qaadhaanbixiyayaasha ah ee naga taageera ama aynu ka wada shaqayno hawsha maxaan ku dhahday diiwaangelinta waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna runtii si daacadnimo ah arrintaasi uga bareeray oo raba inay hirgasho in diiwaangelinta loo arko inay tahay arrin aan la kala lahayn oon xisbiye lahayn oon xukuumadi lahayn ee qaranka Soomaaliland uu leeyahay waana guul runtii Soomaaliland ay ku faari doonto mustaqbalka insha Allah tacaala waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa komishanka qaranka diiwaangelinta saaka sida rasmiga uga bilaamatay gobolka Maroodijeex ayaa socon doonta ilaa 28 bisha May waxaana haddii si nabadgelyo ay guud ahaanba dalka uga qabsoonto ay u horseedi doontaa inay dalka ka qabsoonto doorashooyin xor iyo xalaal ah